dunida ama adduunka xafladda waxaa nagala soo qayb galay mas'uuliyiin fara badan sidaad arkaysaan baa ugu horeeyo safiirka Soomaaliya ee Kenya Ambassador Maxamed Cali Nuur Americo gudoomiyaha SYO Maxamed Ibrahim Ali xidigi Jenyo ee kubadda koleyga Saciid Qorsheel National Team Soomaaliya Ali Xaashi Ahmed Shuqul iyo mas'uuliyiin kale fara badan khudbadaha way noo soo gagaaban doonaan marka hore macalin Basquale marka hore waxaan ku bilaabayaa Saciid Qorsheel labadiis daqiiqo bal inuu ku dhiirigeliyo marka xigtana waa wax runtii aan lagu qiimeyn karin 2 daqiiqo iyo wax lamid ah laakiin waxaan mar labaad mahad leeyahay dhalinyaradii ama dadkii soo qabanqaabiyay gaar ahaan meel nabadu ka jirto oo Soomaaliland ugu badan tahay haddii otomaarsan looga maaragtay xusay waxaan filayaa inay noqonayso in meel walba adduunka laga ogaado Soomaali wali inay nooshahay aan wax kale oran maayo waxaan leeyahay aad waxaan ku farxay carruurtii yaryaraydo qaarkood 8 jir 9 jirka ahaa oo fursad u heleen inay ciyaaraan maadaama ay yihiin mustaqbalkii bari gabdhihii ciyaarayay wiilashii dhalinyarada basketballka ciyaarayay waxay dhiiri gelinaysaa qof kasta oo Soomaaliyeed oo arka waxaan leeyahay marka wixii tusaale oo kulay ku saabsan barnaamijka waxay noo sheegi doona maxay ahayd madaxda kaleeto anigu waxaan leeyahay aad iyo aad baan runtii aan leeyahay guuleysta Soomaaliland waxaan leeyahay kulay dunida waa la tartamay meel kasta oo lagu tartamay laakiin anagu waxaan ka markaati kacaynaa Kenya gaar ahaan Nairobi ilaa iyo maxay ahayd dhalinyarada yaryar ilaa iyo safiirkiinu ummad isku xiran inaad tihiin oo aan kala maarmin oo runtii wada shaqeeya oo hiliyo marka anigu waxaan leeyahay wax kale oran maayay waxaan jeclahay xafladiina kale runtii inaan kala soo qayb galo wixii tala iyo wixii kale oo xoog ah waxaan leeyahay waa in ka mid ahay wixii maanta ka dambeeya otomaarso lama ilaawi karo waa walaalaheen waa hooyooyinkeen waa gabadhiina la dhashay maadaama ay tahay maalintiinii waxaan leenahay gabdhahaas anu intaasuma ku soo gabagabeynaya waxaan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ma san yahay xidigii kubadda xulka ama kubadda Jenyo ahana national teamkii Soomaaliya markan waxa ku soo dhaweynaa ambassadorka Soomaaliya balsi isna kelmadiisu yiraahdo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa marka hore Maxamed Cali iyo SY oo soo qabanqaabiyay xafladan maanta aad ka qurux badan leh waxaan kaloo mahad celinayaa Shamso iyo kooxdeeda oo markas soo taagan inay naxasuusiyaan hidaha dhaqankeena waxaan kaloo u mahad celinayaa dhalinyaradii ka qayb gashay ciyaartii maanta la ciyaaray kubadda koleyga ahayd inkastoo soo daahay oo aniga tusi lahaa mataqaanaa waxda ka dhigi lahaa meesha waqtigo mataqaanaa maqrib soo galayo waxaan rabaa inaan xasuusiyo inay habboon tahay inaan gacanta qabanno inaan sugaano dhalinyarada yarna la baro mataqaanaa hidaha dhaqankeena iyo in mataqaanaa inay ku mashquulin waxyaabaha qaladka ee xun waa mahadsantiin Ambassador Maxamed Cali Nuur Americo markana dhinacii gabdhaha waxaa codkooda ku hadli doonta Faadimo Cilmi Muuse Jine Boqor ku soo dhawow waa Maarso waa maalinta kaliya ee adduunka nala ka aqoonsaday haddana waxaan sii salaam buraha u celinayaa dhalinta safiirka howlkabadaalaha iyo kooxda madaashada ee gabadha la yiraahdo Maryan ay u madaxa tahay kooxdaasaan mahad u celinaya gaara mid ka xigta waxaan leeyahay hooy hadday silciyo dhilmooto sareedaha hadday ku waarto Soomaali baa leh sida Cali ambassadorka bis oo sidiisa loo soo celiyo sida safiirka waan ilkala ahay waan daalay waan gaboobay sida isagu u jiro ee u jooga hawshaan ula qabino waryahay la qabtaay hawsha yaa buu safiirkii ilaahay jeeyaa
هنشياي هوسياي لقبته ورنفر كلي فال ما نقضه كلي كل نقض قرنك هبقنكيسه عيديسه qaxoontigiisa bukaankiisa kan xidhan kuwiga lagu xidhay xeebta isaga soo saaray kuwa banaanka jira isagoo halgamaya waariyaha ragga isagoo meelan ka dhig kooxda yadaasna kooxda hanuunsan ee hagaagsan ilaahu gabdhuhu raaceen raggu raaco warwaan mahaday dalku waa nabad haday siliya dhimuuto sareeda haday ku warto Soomaaliya baale أمباشا توربيس كان سيتا وحكومة قال نبض داون بانو سيتا هانتين الله يقبسي أدون كادي الله ياسر نكا سياسي دونا سدايا نبض بسم الله الرحمن الرحيم مركا أوغو الرئيسة وحن سلامة يا سفيرك سفارة الصومالية ودولة الصومالية أفضية سفارة كينيا إيوه dadka sharaf kale ee mudane iyo marwo ah ee ka soo qayb galay xafladan loogu tala galay maalinta haweenka Soomaaliyeed iyo maalinta haweenweynaha adduunka marka xigta waxaan hambalyo leeyahay haweenweynaha adduunka maalinta Otomarso marka xiga waxaan hambalyo leeyahay haweenka Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo marka labaad waxaan hambalyo leeyahay dalka aanu ku noolnahay ee Kenya haweenkiisa waxaan leeyahay hambalyo haweenka Afrika waxaan leeyahay hambalyo si khaas ah hambalyo waxaan leeyahay haweenka annaga nala mid ah ee dhibaatadu ay hayso muxuu ahaa dhaawac haya meydka duugaya muxuu ahaa mariilka baaninaya abaartu ay hayso Soomaaliya waxaan leeyahay ilaahayga casaawajallaha ahaa Allah idin dhibdhaamo Allah idin fududeeyo waxaan leeyahay colaada Allah naga dulqaado abaartana Allah naga qaboojiyo ummadda Soomaaliyeed nabad iyo bashbash iyo barwaaqo isugu soo ilowda Allah siiyo haddii colku uu batee balaayadu ay dhacdee bir laysu afaysta la buunbuuniyo himaatida dad baa ku basanbaasayaan dudadu haba ugu badnaatee beydkaagay dumin balaayo aday barbarkaa gashaa in nabad lagu baaqo weeyaan baraariya khayr la helo berisamaad loo noqdaa amiin dhaha kulligiin waxaan leenahay in nabad lagu baaqo weeyaan baraariya khayr la helo loo noqdaa berisamaad waxaanu rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed in ilaahayga casaawajallaha uu soo hadiyeeyo ummadda qalbigeeda Allah isu soo duwo nabadna Allah na siiyo Soomaaliyay nabad salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh si uu nagu soo qatimo waqtiga aad noo hayo الله وبركاته waxaan meeshan ka salaamayaa dhamaan marti sharafta ka soo qayb gashay dhalinyarada oo iskugu jiraan wiilal iyo gabdhaba sida aan maanta u waraweyneen munaasabada weyn ee maalinta haweenka adduunka haweenka waa laf dhabarka bulshada marka waxaan sidoo kale meesha ka salaamayna ambassadorka Maxamed Cali America oo safiirkeena ah Saciid Qorsheel oo ah ciyaaryahan caan ahay marna soo noqdo wasiirka isboortiga asigana waa u mahad celinayna sidoo kale waxa mahad gaar u jeedinaa dhalinyarada oo isxilqaamay maanta sida wanaagsan ee u soo camireen maalinta haweenka adduunka ee munaasabadooda ee u sharaxeen iyagana waa u mahad celinayna sidoo kale gabdhaha oo aflaf dhabarka bulshada waxa waaye hooyoy la'aanta hore loo dhaho hooyo la'aanteed lama noolaa karo gabdhaha la'aantoodna lama noolaa karo marka waxaa leenahay gabdhaha wanaagga iyo sharafka iyo quruxda maanta aad soo jeediseen idinkoo kuwa yar iyo kuwa waaweynba waa u mahad celinayna sidoo kale hay'adda madaxda ka ah SYA oo maanta munaasabada inay dhigtay waxay inay ballan qaadi doontaa munaasabad kuwan ka duwan oo kana tiro badan sida sharafta la maanta ugu soo qayb gasheen oo uga farxisan ay anakana dadaalkeena u laba jibaari doona waan mahadsantiin
Okay. Under 18 captain. Under 18 captain. Makofi jamaa. Now winning team ladies. Red team. Okay. Finish. MashaAllah. Dadka kala fariisi. Asaga sikala. Wale sarko otomasa ayata. Wale sarko. Wale sarko. Wale sarko. Wale sarko. Wale sarko otomasa ayata. Wale sarko otomasa ayata. Otomasa ayatale, otomasa ayakale, otomasa ayakale, otomasa ayatale, wale sarko, otomasa ayatale, ayatale wale sarko, wale hello with the I